waddan meesha uu ama ka burburo ama ka dhismo waa halkan aan maanta fadhino. waddan meesha uu sharaf ku yeesho ama ka sharaf dhaco waa halkan meesha fadhino maanta fadhino way. hadday meeshani sharfoon tahay oo dhisan tahay waddankaasi waa dhisan yahay. haddii ayna sharfoonayna waddankaasi ma sharfana. waddan ahaan buuna u sharfanayn, qof ahaan buuna u sharfanayn. marka meeshaan ka dunanay halkan way. dib u soo celinta qaranka Soomaaliyeed qaybta ugu weyn waxaa iskale oo la rabaa inay ka qaataan xooggeena dalka Soomaaliya. duruufahaas adag oo hay-ad waliba ku shaqeynaysa had la qabtaan oo aad ka adag, laakiin marxalad baynu maraynaa. marxaladaas aan marayno maalin baan ka soo fiicnaanaynaa. waxaa waaye shalay maantaan ka fiicannahay waa la hubaa. berrina waan ka sii fiicnaanaynaa. meel aysan ka jirin hay-adaha dowladda markaad fiiriso duruufo aad u adag ma jirto. laakiin innaga focuska ugu weyn meeshaan saarayno oon xoogga saarayno oon wax walba isugu geynayno waa difaaca dalka iyo xoogga dalka Soomaaliyeed oo ah difaacayaashii koowaad ee dalka. waxaa la yidhaahdaa salaad waliba say kuu qabato ayaa loo tukadaa. inagu waxaynu aan goosannay markaan nimid dalka inaan waxba la samayn karin, horumar haba yaraatay aan la samayn karin haddii aan al-shabaab aan dalka laga xoreyn oo dalkan nimankaas laga saarin. markaas keliya ahaato ayay imaanaysaa waxaan doonayna dalkan inuu saan doonayna inuu dhaqaaqo, sharaftii inuu yeesho, ciidanku inuu dhismo, dhaqaalihii inuu dhismo, dalkan inuu xor noqdaa ka horeyso. horta dal la haysto iyo dad boqol loo dilaayo maalin walba, la qarxinayo, la baabi'inayo, waxbaan dhisayaa iyo dhaqaalaan korinayaa iyo waxbarashaan kor u qaadayaa iyo caafimaad baan samaynayaa, suurtagalka maaha. marka waxaan nidhi priority number 1 iyo ilaa tiro weligaa ku gaarsiiyey ilaa priority number million waxaa inoo ah inaan amniga wax ka qabanno. waxaan ka fakarnay marka inaan see la yeelaa in horta bal ayaga waxay yihiin la sheego, culimadii loo yeero, inaan dhahno see loola dagaalami karaa saa hadda sheegteen, fikirka aan kala dagaalano, dhaqaalaha aan kala dagaalano, militarylina aan ula dagaalano. marka wax fiicanaa laga qabtay. dadkeenni baan abaabulinay oo aad ogtihiin meeshay dagaalka ka joogeen. arrintaa marka runtii dagaal baan ka gallay, wacyigelin aad u xoog badan baa la sameeyey. dadka Soomaaliyeed baan la hadalnay, qaybahooda kala duwan aan la kulannay, culimadoodii baan la kulannay, fatway soo saareen, civil society baan la xiriirnay, qayb kastoo yihiin aan la kulannay, odayaashii dhaqanka, waad ogtihiin dhalinyaradii, haweenkii, dadkii Soomaaliyeed. maanta marka sidii way ka bedelan tahay. shacabkii Soomaaliyeed baa hubkii qaatay, ayagii baa la diray, dagaal bay la galeen. odayaashii ugu sharafta badnaa ayaa ku baxay, dhalinyaradii qiimaha badnayd baa ku baaba'ay, waa iska celiyeen, waa iska xoreeyeen. waad ogtihiin hiiraan wixii ka dhacayay waad ogtihiin, iyo sharafta iyo biladday ku qaateen iyo siday isooga dhiciyeen iyo meeshay saareen. dad shacaba siday ciidamada ula hawlgaleen. marka taasaa keentay inay ciidamadeena intay dhiiradaan oo maxaan ku dhahaa ay dagaal galaan, shacabkooda iyagu isku milmaan, inay si wada jir ah inay nimankii isooga xoreeyaan, isooga celiyaan, oo ay ka saaraan dhulkii hadda la tirinayay ee faraha badnaa iyo magaalooyinkii hadda la tirinayay ee faraha badnaa in la xoreeyo. saasay ku timi. haddaan shacabku aysan ka garab dagaalami lahayn oo aysan taageeri lahayn, ciidamadu ma dhaqaaqeenba, maba dhaqaaqi karinba. ciidan kastana waa sidaas. ciidan keligii iska socda ma jiro. ummad dagaal gashaa jire, ciidan dagaal gala ma jiro. ummaddu waa inay dagaal gasho, shacabku waa inuu dagaalka galaa. marka dagaalkaas runtii guulo waaweyn ayaa laga soo hoyey oo aad u fiican. waxaan diyaar u nahay insha Allah oon ka shaqeynaynaa habeenay maalinba u taagannahay in
أودهني أيضا مالين با أنتي صورتك على سويش